xubnaha guddiga dhawaan loo magacaabay taakulada dadka ku tabaaloobay xanuunka safmarka ee COVID-19 xubnahaasi oo ka kooban culimo u diin ganacsato oo maanta si wada jir ay ugu qabtay magaalada Hargeysa ayaa bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka ugu baaqay in la soo caawiyo dadka danyarta ah ee uu saameeyay shaqooyinkooda xanuunka safmarka ee coronavirus kuwaas oo ku nool gobolada Somaliland xubnaha guddigan oo hadalka iska daba maray ayaa baaq midaysan u diray bulshada rabbil caalamiin salaatu wasalaam ala rasuulillah halkan waxa maanta shirshiraad ku qabanaya guddidii qaaraan ururinta xanuunkan uu sababay ee xanibaadda ah COVID-19 guddidaas oo ka kooban 19 xubnood waxaa magacaabay guddida madaxweyne ku-xigeenku yahay guddoomiyaha madaxweyne ku-xigeenka magacaabay waxaanu magacaabay abriil 26keedii guddidani waxay ka kooban tahay ganacsato iyo culimo oo intooda badan khayrkan ka soo shaqayn jirtay muddo dheer guddidaas waxay jeebkooda iyo waqtigoodiiba u hureen inay caawiyaan walaalahooda ay dhibtu ka soo gaadhay xanibaadda uu keenay xanuunkaas COVID-19 waxaa lagu qiyaasay dadka dhibtaasi gaadhay ama ganacsatada ka koobnaadaan yaryar ama ha ka koobnaadaan shaqaale ama ha ka koobnaadaan macallimiin mid quraan iyo mid maadiyaba ah dadkii awoodi waayey inay shaqo tagaan ee nool maalmoodkoodu shaqada ku xidhnaa mid farsamo gacmeed ku shaqaynaya iyo mid kaleba 60,000 oo qoys ayaa lagu qiyaasay dadka ay dhibtaasi saamaysay dadka la caawinaya waa 60,000 oo qoys oo dhammaantood jooga Somaliland intay ka kooban tahay dadka waxa loogu talagalay in hal bil raashinkood lagu caawiyo halkaa bil waxa lagu qiyaasay inay ku filan tahay $50 lacagta marka la isku dhufto waa 3 milyan oo dollar inta loogu talagalay in lagu caawiyo walaaladeen ay dhibtaasi soo gaadhay dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay ku deeqday 1 milyan oo dollar account-kiina way ku shubeen 1 milyan oo dollar waxa soo haray 2 milyan oo dollar 2 milyan oo dollar waxa laga rabaa dhammaanteen dadka Somaliland jooga ganacsato shaqaale kuwa la caawinaya laftooda inaan lagala xishoon cidna min 10,000 ilaa inta ugu badan ee lacag la bixin karo in la bixiyo oo xataa saxaafadiinu ay ka qayb qaataan oo ka mid yihiin 2 milyan aynu walaaladeen ugu talagalay waxaa laynaga rabaa inaan bisha khayrkeedu inoo furan yahay Ramadaan intii aanay dhammaan inaynu soo ururino oo aynu ku shubno accountska halkaa ku qoran oo aynu lacagta soo diyaarino dhammaanna gobolada la gaarsiiyo fariinta guddiyana laga sameeyo gobol walba ka gurta lacagta intaasaan ku soo dhaweynayaa anigu hadeerna waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Cabdirasaaq Albani oo isaguna inoo faahfaahiyay intii dhiban بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaa halkan uu inooga sheegay guddoomiyuhu muhiimadda weyn ay leedahay ee guddidan loo aasaasay waxaa laga doonayaa dhammaan muslimiinta inay marxaladdan oo kale aynu gallay ee ah marxalad runtii adag inaynu kaga baxno sidii ilaahay ina faray subxaanahu wa tacaala marka marxaladaha noocan oo kale ah aynu gallo hadday abaar tahay iyo hadday tahay wakhti adag oo xanuunadu yimaadaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fii kitaabihi alcasiiz falaqtaxama alcaqaba
وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إلهي سبحانه وتعالى وحا وينقو بابيي إن عقبت أدق إما أنت قيامها إيمان دونتا قفك مؤمن كان لقربو إن أو كتلابو عقبت وحا لقا تلابي كران أي تهي عمل صالحة عمل كان لقا تلابي يا إلهي با سبحانه وتعالى الربابي والشاقي وحكم إذا فك الرقبة إن أدول الحرية أو إطعام في يوم ذي مسغبة أما سلا قوديو قف مسكين مالين قاش أي شرتو يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة هدو أقول يهي أو حكتدا هذا يهديو يهي قف مسكينة أو عيدة أما دولك كل جنبها إلهي سبحانه وتعالى شاقي وعلى إلهي سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ما قاريسان سبافلك هي درجة أسر رئيس إيمانك إلى آد بحثتان وحكم إذا وحي إلهي سبحانه وتعالى وإذن سيئة مالة مركا ما أنتو كلا ومالين تأي واجب كتهي ضدك مسلمين تأ إلى إسعاويان وحنا أي علماء فتوى كسو صارين كارهان علماء أزهر waxay ku soo saareen xanuunkan COVID-19ka iyo wixii la midka ah xanuunada yimaada waqtiyada shidada iyo adayga la galo inay waajib ku tahay muslimiinta dhammaantood inay iscaawiyaan gaar ahaan ay arrimaha ku saabsan xagga gaajada iyo dhibaatada ay iskala dagaalamaan oo arrinka noocaas ay tahay sadaqa waajib ah ee sadaqa sunna aanay ahayn sadaqadii sunnahayd waxay isu bedelaysaa sadaqa waajib ah marka xaalad adag la galo sidaasaana shareecadu ay qoraysaa sidayna hadda aayaddii aynu akhrinay nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey ayu sadaqati afdal sadaqatii baa u fadli badan qaala an tasadaqa wa anta saxiixun shaxiixun inaad wax sadaqaysato adigoo caafimaad qaba oo aan ku gacan adaygaya intii yarayd oo beekhaaminaya تأمل الغنى وغني نمنا الرجينا يأكددي تاجن وتخشى الفقر باهدي لك كبقرية مركا ما أنت قف ولو بوحبحي هيراته هبطناته صحابة حالة دروك لمركا يقشوا النبي عليه الصلاة والسلام وحرن شري وحصاب بحية نوح كاري شري حولي صوردن نوح كاري شري مالكي سكالبد ما أنت وحين ربنا إن أين إلهي سبحانه وتعالى كيف سنة جندي سيدا إلهي بيقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلهي با مؤمنين تنفتو دا يمال كودا جنك كيف سدي مركا إنه جندي وأنت وإيب إيب بيقطع على جندي قفكي صدقة بحية قفكي عمل صالح علي ما دا إلهي با سبحانه وتعالى بدل كذا سيريا إلهي نوى ينوغو باقي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قف كيبا إلهي سبحانه وتعالى وحدي بنيا وأماه با إلهي سبحانه وتعالى كدقي واحد ألا أديبته وأماه oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala isagana xasanaadkii uu maartay u labanlaabaa dembigii walaalayaal ayaa laynaga dhaafayaa nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ittaqu naara walaw bishiqqi tamra naarta wuxuun iska xajiya timir jeexeedana allah ka dhigay waxaad ogaataan qof kasta in uu sadaqada maalinta qiyaamaha marka la tago ee la qatay la qaawan yahay ee qoraxda layna dul keeno waxa uu harsanayaa inay tahay sadaqadiisa kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bayna an-nas qof walba sadaqadiisa ayuu loo dalaalimaynayaa oo hoos harsanayaa ilaa iyo inta makhluuqa janno iyo naar loo kala saarayo xanuunada maanta jira waxa balaaya xijaab u ah sadaqada ayaa balaaya xijaab u ah oo ilaahay inaga xijaabaya subhanahu wa ta'ala xaqiiqadii iimaankana ma gaarayno halkii u sareysay ilaa aynu wax baxsano sida ilaahay ba sheegay lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun
ما واجي بريا لما ملك باسود لما ده ملك حباري الدعاء كلا سيدان مدوح ليه اللهم أعطي منفقا خلفا إلى وقفي وحب حصدي بدل كذا الصي ككلا وحليه اللهم أعطي ممسكا تلفا إلى وكي وحي سهيستكوب خيلي كبابي مركا ما أنت وين سوء جيان دد كيدول ككل جنا مركا وحليه ولا ليال حالك الدولار يا كير يا كبدن أنت بس صدقيستا وعنكو ختمة يا وعن لا هاي نبي سبق درهم 100,000 درهم هل درهم باكديريي بقول كنو درهم وسدو قديريي با نبي قال ويدي نبا لبا درهم هيستوى النبي يريو منا وبخيا منا waa la haray midna maal aan istabayn buu leeyahay markaasuu dheegaa ka soo gooyay xooli uu lahaa wuxuu bixiyay wuxuu rabay toona kala garan maayo maalkiisa oo fara badan dartii marka maanta qofkii $2 haysto mid soo bixi walaalkaaga aan waxba haysan waad mahadsantiin ilaahayna waxaan ka baryayaa tabaaraka wa tacaala inuu xanuunka ayna hareer mariyo dadka isku tashadana allah inaga dhigo صلى الله على نبينا محمد ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ولا الله يجهره يجهره بعد ما يستري وحنو درنسنا هاي عالم كمان توه حكوا ساكر رأي كورونا فيروس رات كوك جتجي عالم كواحد هيستين كيد أي أمده وجود تلاجلان إننا واحد من السنوات كمسلمين تامر كانوا نهاي كيد كوجود قيمها بدن له أو هنتدا إلى الوضلين هاي ومالنتي لسكوبهنا هنتي يا مالك لإسسيناي walaalkaaga dhibaataysan jaarkaaga dhibaataysan qaraabadaada dhibaataysan kaad isku dalka iyo isku wadanka tihiin waa maalintu u baahnaa saddex qodob baan jecelahay anigu xaqiiqatan ku soo koobo wax bixintu waa asbaabaha jannada lagu galo nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ayaa inoo cadeeyay wax bixintu waa asbaabaha naarta lagaga badbaado nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ayaa inoo cadeeyay nabigu wuxuu tilmaamay amal la qabto waxa ugu wanaagsan walaalkaaga gaajaysan inaad gaajada markaa ka saarto sida daraadeed mujtamaca Soomaaliland ee kala duwan hadii aanu nahay ganacsatada iyo culimada loo xilsaaray arinta waxaanu idinka filaynaa yar iyo weyn dhammaantiin inaad iskaga barbar taagtaan sida la tilmaamay qoyska wajigan koowaad waxa ku filan raashin u dhigma $50 waxa ku jirnaa bishii Ramadaan waxay foodeen ugu soo haysaa ama inuu joognaa waqtigii sakaatul fidrida qof kasta waxa ku waajiba 2 kiilo iyo badh oo sakaatul fidrida ah lacagta u dhiganta qofku uu garanaya sakaatul fidrida lacagnimaha hadaad noogu soo dirtaa guda iyo dibadba sida sharciga ayaanu marinaynaa raashin baanu siinaynaa waaba inta kaliya inuu baahanahay maanta hadii qof kasta 2 kiilo badh u bixiyo waaba lacagta inuu raadinayna weeyii sida daraadeed Soomaaliya waxa lagu qiyaasaa 3 milyan iyo badh lacagta la naga rabaa markay dawladdu bixisay 1 milyan waa 2 milyan weeyii 2 milyan oo min $1 bixiya waa 2 milyan bixiya min $2 waxa weeyii waa 2 milyan markaasi weeyii 500,000 oo qof oo iyagu bixiya $4 waa 2 milyan weeyii intaas aynu u baahanahay 10,000 5,000 halka $1 maanta waa maalintii ganacsatada yar $1 aanu ka raadinaynay aad iyo aad baad mahadsantiin wajazaakumullahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بسم الله والصلي والسلام على رسول الله إلهي بقى مهبله هذا المهر نود قلدي هرا وحي وضطري إيرو مرة عنا يا وحن هو أما ويارا كوا هاي غير سومالي لاني دقسيين وحيوا بدن بنوجس وشوقني بيدابسكي أباريه قرمتكي بلد وينه سيدا ينوكي هلاي maanta oo aynu libanaabna loo baahaye waxa la jeebka aynu gacanta gelino waxba yeelan la xishoon wax yar iyo wax weyn walba wuxuu hayo ee uu karaayo dadka muxsini dadka shirixsan ee hadii la badankeeday shaqooyinka ka xidhmeen xanuunkan inagu yimid daraadeed in la caawiyo hal isu taagno dibad iyo gudaba waxba yeelan la harin sida Sheekh Ciise faahfaahiyay $2 $3 $5 طبعا بمشترك ده وحي سال لوكلا هيرو يهي نو اللي ما مرتي بقدر كران كيس إنه وحكو بحيو
marka aan isu gurmano dadkeena aan u gurmano aakhira iyo adduunkaba waxbay naga taraysaa maanta kaynu wax siino aynu caawino aynu dheriga dabka u saaro aynu gaajada ka biino inaguna maalin bay gaajada taaynu bixinay naga biinaysaa aynu u baahannahay waa aakhiro marka naftaada ka qaad oo naftaada u qaad weeye waxaan leeyahay aan dadaalo iyo inaanu kala harin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد halkan maanta waxa bulshada reer Somaliland iyo bulshada Islaamka iyo bulshada Soomaaliyeed ba kula hadlaysa gudidan loo magacaabay sidii ay ugu ururin lahayd qaadhaan dufka caalamka ku faafay oo inagu aad uga ladanahay ilaa imaka dadkii ku tabaaloobay hadalka intiisii muxda lahayd culimada muhiimaddu waxa weeye wixii ay ka ururiso ummadda ee sakaatiya culimadii reer Somaliland oo dhan way ka hadashay kiliiskana way ka daawan doontaa gudidan iyada gaarsiin doonta insha Allah dadka muxsiniintii waxay la baxeen dadkii u baahnaa iyaga gaarsiinaya oo waa mas'uuliyadda gudidan ma aha inay ka ururinayaan laakiin insha Allah mas'uuliyadana waa qaadanay inaanu gaarsiino dadkii loogu talagalay muhiimaddu waxay tahay maanta oo kale sidii ummadan reer Somaliland caadada u ahayd inaynu dhinac iska dhigno wax walba oo aynu isu taagno sidii aynu ugu ururin lahayn waxay ku noolaadaan bil ama laba dadkeena baahan dufka caalamka ka dhacay ee saameeyay ee shaqooyinkii caalamka oo dhan kala xidhay aynu wax u gaarsiin lahayn marka miidiyada ayaan qodob leeyahay intiina halkan joogta iyo intiina naga maqanba kelmadda aad gaarsiisaan waa sadaqo inaad dollar bixiso inaad $2 dirto iyo inaad qof kasta oo kelmad gaarsiin kara caalamka ummadda Soomaaliyeed ummadda muslimka ummadda reer Somaliland meel wali joogaanba waxa weeyaan qof waajibkii arintan loo saarnaa waajibkii ka saarnaa gutay kana qayb qaatay dadka walaalihii tabaalaysan sidii wax loo siin lahaa waxaan filayaa maanta inay joogto maalintii ganacsatada waaweyn in badan baynu ku samatabaxnay lacag ka qaadnay maantana waa loo tagayaa waa laga qaadayaa maantii reer Somaliland isku tashan lahaayeen qaadkii waa la joojiyay maalin intii lagu qayli jiray hadaynu u ururino ummadeena maalin intii lagu qayli jiray way naga filantay hadda waa maalin intii lagu qayli jiray marka waxaan u duceynaynaa qof kasto qayli jiray bisha inuu iska daayo bal intii uu ku bixin jirayna maalin wuxuu ku qayli jiray qarashku ku bixin jiray oo bixiyo walaalihii sidoo looga caawin lahaa aadna waa idin salaameynaa waxaan rajaynayaa message-ka in la wada gaarsiiyo ummadda dadka dibadana si gaar ah iyo xuluga saaran yahay inay qaadhaanka si waafiya uga soo qayb qaataan nambarradana meel wala caalamka joogaan kaga soo diraan السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علماء قناعسة بعض الصحافة لما يتوضح عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب إلهي سبحانه وتعالى مركب ورسول ما هدنا غينا إلهي سبحانه وتعالى inoo nimceeyay naga dhigay ummad muslimiina xanuunada kaga qaylisiiyay dawladihii waaweynaa nuclear ka samaystay dayax gamceedada samada u dirtay ay la waasheen ma garanaysaa wada khalkhaliye systemkooda oo dhan ma garanaysaa kala daadiyay inagoo aan waxba aan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina badbaadiyay baynu ma hadnaqaynaa xanuunka ma garanaysaa ay caalamkii kala daadiyay ee dhibaateeyay maartay gidaarada ku kala wada xidhay la leeyahay imika sidii 3 bilood markii la fadhiyay dabaqyadii waa la iska daadinaya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga nabadgeliyay inagoo aan waxba awood iyo itaal toon lahayn inoo hawl yareeyay ma hadnaqayn sida la socotaan xanuunka maartay coronavirus waxa ilaa hadda dawo looma hayo laakiin inagu dawo inoo hayna
dawada inagu aynu aynaa waxa lagu soo ururiyay iyagu ay ku soo ururiyeen faraxasha oo fooldhaqda oo kala fogaada wata markii hore waa faraxalan jiray oo maalintiiba 5 jeer iyo ka badan baynu weysaysan jiray waana fooldhaqan jiray teeni waa lagu soo dhacay dawana inagu aynu haynaa dad muslimiin aynu sida diinteenu sheegtay dawada nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam dadkiina buka ku daweeya sadaqada wax bixinta ku daweeya sadaqadu waa bilaa xijaab sadaqadu maalkay barakaysaa inaguna waxa la inagu xamtaa inaynu nahay dad ma garanaysa hadaynu nahay ummadda Soomaaliyeedba waxa la inagu xamtaa inaynu nahay dad deeqsiina oo iscaawiya oo dhibaato kasta oo dhacday ka soo dabaashay haday daada tahay iyo haday fatahaad tahay iyo hadii ay abaar tahayba marka codsiga iyagu waxa weeye bixi hal lagu barakeeyo maalka sadaqada bixi bilaayada lagaga xijaaba karoonaha adiga iyo ubadkaaga iyo oryahaaga bixi hal lagu siiye amaartay hal lagu siiye si dadka waxaanu leenahay sadaqadu yaryaraysi male $1 $2 $3 $10 ha lagu boobo wixii ka badsanayaana waxaan leeyahay ilaahay idin badiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku xidhnow dhamays media production meel kastoo joogto si aad u hesho wararkii u dambeeyay ee dunida iyo Soomaalida subscribe garee oo furo gambaleelka